Waxaana wanaagsan dhegaystayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan warbaahinta Naafi Show. Waa 15 bisha 8 2026 maalinimo Sabti ah. Qodobada qaybtan aan idinkuga haynana waxaa ka mid ah Mareykanka oo Israa'iil ka hor istaagay in ay weerar ku qaado gudaha Suuriya, Shiinaha oo helay macdan muhiim u ah tiknoolajiyadda iyo dalalka reer Yurub oo markaa aad moodo inay duuleysi uu ku socdo Mareykanka oo ku amray gaar ahaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump madaxda reer Yurub inay si fagaara u amaanaan siyaasaddiisa arrimaha dibadda. Qodobo kale ayaa raaci doona haddii aan waqti u helno. Marka hore saaxiibada aan halkan ku midowniyo barnaamijkan haddii uu kusoo gaaro laag iyo share si meel fog uu gaaro. Aynu ku bilownay Mareykanka ayaa lagu waramayaa inuu joojiyay isku day ay Israa'iil ku doonaysay inay ku bilowdo weerar ay ku beegsanayso bartilmaameedyo ku yaala gudaha Suuriya, iyadoo ujeedada weerarkan lagu sheegay inay Israa'iil ka hortagayso isballaarinta Turkiga ee gudaha Suuriya, sida uu maanta wariyay telefishinka ka soo baxa Israa'iil ee Channel 13 oo sheegay in Mareykanka uu tallaabadan u qaaday si uu uga hortago iska hor imaad toos ah oo Israa'iil iyo Turkiga ku dhexmara gudaha Suuriya. Toddobaadkii hore sidan oo kale Mareykanka waxa uu joojiyay duqeymo Israa'iil ku doonaysay inay ku burburiso goobo sir ah oo nidaamkii hore ee Bashar al-Assad ay ku qariyeen walxo shucaac nuclear ah oo dhaliya oo ahaa haraadiga isku day ay Suuriya ku doonaysay in ay ku dhisato horaantii 2007 barnaamij nuclear ah iyada oo taageero ka helaysa injineer Kuuriyada Waqooyi u dhashay, balse xilliga Israa'iil ayaa goobtii mashruucaas lagu bilaabi lahaa duqeymo ku burburisay. Isku dayga ay mar kale ku doonaysay Israa'iil inay ku burburiso haraadiga mashruucan waxaa lagu joojiyay si dhexdhexaadin uu Mareykanka ugu sameeyay, waxaana haraadigan walxaha ay ogolaatay dowladda Suuriya in lagu wareejiyo hay'adda tamarta adduunka ee IAEA. Shiinaha ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay inuu dhulkiisa ka helay nooc macdan cusub taas oo hodan ku ah macdanta loo yaqaan germanium. Macdantan ayaa hodan ku ah tiknoolajiyadda iyo qaraxyada, taas oo sare u qaadaysa kaydka macdanta uu Shiinuhu haystay. Xilli hore Shiinuhu uu ahaa dalka haysta kaydka ugu badan ee macdanta laga sameeyay tiknoolajiyadda maanta dunida laga adeegsado. Dalalka reer Yurub ayaa si ay u helaan taageerada Mareykanka waxaa lagu xiray inay si fagaara ah Trump u amaanaan oo ay taageeraan siyaasaddiisa arrimaha dibadda, taas oo aysan hadda sameynin. Waxa uuna dhulkooda ka saarayaa ciidanka Mareykanka ka jooga Yurub, waxaana kaloo la joojin doonaa adeegsiga saldhigyada Mareykanka iyo taageerada kale ee ay ka heli jireen, sida ay maanta warisay Bloomberg. Waxaa kaloo shuruudahan ku jira in ay sidoo kale dalalka Yurub hubka ka iibsadaan shirkadaha difaaca Mareykanka, taas oo u laqmi waysay dalalka reer Yurub.